kaga siino shirkan siduu u dhici doono iyo qabanqaabadiisa waxaan la kulanna qaar ka mida guddiga ka shaqayn doona shirkan sida korneel cumar xasan oo isagu u qaabilsan amniga oo qaybka guddiga ka shaqayn doono shirkan iyo qabanqaabadiisa iyo mustafa maxamuud oo isaguna ka shaqeeyo wasaaradda qaybta boorisgaarsiinta oo isagana wax ka weydiina shirkan siduu u dhici doono iyo qabanqaabada iyo sida looga shaqayn doono han ku horeyno mustafa maxamuud oo isagu u qaabilsan qaybta warisgaarsiinta kuna jirana guddiga ka shaqayn doono shirkan oon wax ka weydiinay sida shirkan loo diyaarinay amba guddigan uu shaqaynayo iyo sida loo howlgalayo. Assalaamu calaykum waraxmatullah. shirkani waa shirkii saddexaad ee laga hadlo waxbarashada markaasi waxaa qabanqaaminaysa wasaaraddeena oo dee magacii dowladda sidata iyo hay-ad la yidhaaho Education Relief Foundation. shirku wuxuu dhici doonaa 27 ilaa 3 show 27 ilaa 29 bisha Janvier 2020 ka dhici Djibouti. waxaana kasoo qayb geli doonaa ilaa 100 iyo xoogaa uu fudud oo madax noqoto hadday wasiiro noqoto hadday jaamacado qaar ka socdo noqdaan waxbarashada ku saabsan oo dhan ayaa kasoo qayb geli doonaa. sida arrinkaa loo diyaariyo madaxweynuhu wuxuu soo saaray wareegto uu gudiyo 8 guddi oo ka kala shaqeynaya qaybo kala duwan diyaarinta shirkaasi. anu waxaan ka mid ahay guddiga communicationka sidoo shirkada diyaarintiina toddobaadkii hore iyo wasiirku guddiyada dhan wada yeelay nin walba hawshiisa u diray miishoonyadii wax qabanayeen baa loo diray balandaksiyadiina soo sameeyaa la yidhi isniintii dhaweyd bay guddi walba soo bandhigay wixii hawl loo diray waa la isla gartay guddi walba dee hawshiisa ku jiraa gooni buu u shiraa gooni hawshiisa u wataa sidaaba shirka loo diyaarinaya. hadafka laga hadlay shirkani wax ma ku ogtahay maxaad nooga taabsan? hadafka horta wixii dee hadhow shirkani laba shir hore ka hor kii ugu horreeyay Geneva ku dhacay 2017 kii labaadna Mexico ku dhacay 2018 bishii November wasiirka waxbarashada ayaa ka qayb galay ka labaad Appel International waxa la yiraahdo ayaa lagu dhawaaqay waxa horta muhiimada shirkani uu leeyahay iyo laantan RF la yiraahdo ay wado waxa loo wada socdaan hiigsigii 2030 qaramada midoobay u dhigtay wadan walba inay waxbarasho gaadho kan waxa afka qalaad lagu yiraahdo education équilibrée et inclusive waa waxbarasho loo dhan yahay education équilibrée inclusive kaas oo Soomaaliya ka dhigan waxbarashada maxay isku dheeli tiran oo loo wada dhayo qofba ka tagay sida hadafkeeda uu dhigayo iskoolku 100% waxbarashadu waa inay gaadho oo arday walba qof walba reer Djibouti meesha doono wadanka ka joogay in waa inuu iskool helaa waa inuu waxbarasho helaa waa inuu dugsi u tago helaa waa inuu waxbarashadu sidii horeba bariga Tajanuruga 2000 la dhigay ilaa 16 jirkeeda waxbarasho asaasiyan waa inuu helaa. bal gudiyaashan way hawlgaleen oo hawshii iyo shaqadii way socotaa bal imika siday wax u socdaan iyo gudiyadan sida hawlgalaan waxa la diyaariyay si hawsha halkii taagan. hawshu way socotaa gudiyadii gudi walba wixii loo diray imika gudiga aanu communicationku hawshu wadnaa barnaamijyadii iyo kan kamid yahay badi sidii dadka loo gaarsiin lahaa maxay hadafyada shirkan looga jeedo halbeega lagu socdo waxaad ogsoonatiin horta shirkani waa shir horta sanad weyn Djibouti soo jiiday waayo waxa weyn shirkan markuu dhamaado wixii wadanada ay ku heshiiyaan heshiiska halka lagu saxdo waxa loo magacaabi doonaa Declaration de Djibouti taariikhda u galaysa mar walba sanadaha soo socda dawladna gaarsiiyo oo waxbarasho laga hadli doono war heshiiskii Djibouti baa loo doonaa talabaad madax badan iyo wasaarado badan bay iman doontaa marka wali shir intan laga ilama aha inuu wali ka dhacay wadanka horta marka waa shir aad iyo aad barnaamijku muhiimad u leeyahay waxaan leeyahay waa isku dheelitiranka waxbarashada iyo loo wada dhan yahay horta deena kubadda wasaaraddeena waxbarashada jiritaan baa jiray horta in laga tago maaho waxbarashadeena wiil iyo gabadh horta waa la iska wada geli jiray iskoolka problem male waxyaalaha inuu kan iska lahayn baa jira tan loo wada dhan yahay taas waa halkaas inkastoo dadaal la muujiyo dhuka yare maxay tuulooyinka si fogfoge kolladu carruurtu program imka wax socda region integre la yiraahdo solidarity waxa la shaqeeyo talabaad inaka waxa weeyaan horta mid baan kan ku qarsano shirko inta shirku bilaabin Djibouti shirku ka dhacaya laakiin project pilotkii hadafyadii laga gaaray Mexico markii hore markii lagu wada tashaday in project pilot la sameeyo project pilotkii Djibouti la doortay bishii October waa kii formationkii macallimiintii project pilotka koolada ka dhacayeen waa 6 iskool projectkaas ilaa 1000 arday buu gaari doonaa oo 6 iskool ka kala kooban marka macallimiintii aan hawsha galay markii bishii October baladi beberka formation lagu qabtay project pilotkii bishii labaad buu socdaa markaasi project pilotkaasi wixii education équilibrée inclusive kan sheegnay tiiba maxay uu ka koobay project pilot marka 6 bilood kadib daraasad baa laga yeeyay war muxuu ku soo daray intii wadanadii kale dhan weyn sugayaan project pilotkii Djibouti laga qabtay muxuu ku soo gaaray hadal yaan ku daan maxay Janvier markay bilaabmo tameerado dhan Djibouti ku soo jeesanayaan hadday xaq waxbarasho noqoto 2020 ilaa 19 Janvier Djibouti waxay noqonaysaa waa caasimadii education hadday waxbarasho noqoto caasimadii adduunka iyo 3 cishad waxa wadanada shirkan ka soo qayb galay waxay u badan wadanada education équilibrée waxa xoog maxay wadanada dabaqada dhexe ama dabaqada hoose la yiraahdo markaas waa wadanada Afrika u badan America Latino badan Asia u badan marka waxa weyn inuu waxbarasho wadan kastaba gaaro isagu oo dhismaheega leeyahay waxaan dibadda looga keenin isagu fikirkiisa marka waa la iska shamburaysanaya waxa la isku lahaa global seed baa la isku wadanada berigii hore waxa la oran jiray siyaasad ahaan pays non alignés marka 8
sideetanadii markay dee jiraysay intii dee naato raacsanayd iyo intii baarso raacsanayd wadana waxa loo jiray nooleyniye oo Djibouti ku jirtay wadanada dhinacna raacsanayn kuwii baa dee maanta uu gaashaanbuuraysto unba la mid tahay in barnaamijyada dee lagu macnaynayo haddii raadiyoga noqoto haddii televisionka noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba reer Djibouti inay xoog la socdaan si ku dhaha talabaadna waxa weeyaan dardaaran waxaan kusoo gaweena waxbarashadu dee waa arrin dadka ka dhaxaya waxbarashadu macalinka iskoolka dhex joogan maaha waalidka kelidii maaha waa tabagelintii jiilka dambe marka waa wax muhiim ah waa inuu wada khusaysaana inaa loo wada soo jeedo tax daruuriya waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada waa barnaamijkeennii ubadka iyo aayaha waxaa isku soo dubariday raadiyoga waxbarashada dugsiyada waxaana idiin soo bandhigay xarunta cilmi baadhista ee wasaaradda tacliinta